waxa jira calaamado lagu ogaan karo inuu testosterone ku kaayay oo qofku sida ku eego dareemayo in testosterone kaay wax ka sii ninkan iyo ya maxaa yarahiha ya laygo yara bidix mise left ay waxa laga yaabaa saa la oran yara bidix magaraasa inay heerka gaarin laakiin markii qofku dareemayo in testosterone badan aanay kugu jirin calaamadahaas horta waa dhow koowaad horta waxa weeyaan baruurta lefterkeeda waxay ka samaysantahay amba qayb weyn waxa ka qaata estrogen waxa weeyaan hormoonkii gabadh ka dhigay dumarka testosterone iyo estrogen wax la yiraahdo ku jirta estrogen-ta ayaa ka badan testosterone-ka oo testosterone-ku yiriye baruurta lefterkeeda kana hadii waxa uu ku badan ka qayb qaadanaya ay tahay estrogen hadii estrogen-ta maanta aad kordhisid baruurtaadii way kordhisaa why sababta aad disku u dhow marka dadka aadka u buuran ambate miisaanku uu aad ugu badan yahay sida caadiga testosterone-kooduna sida uma sii badna dadba naturally amba ku dashay testosterone inaba caadi ahayn oo aad u badan tahay garanaysa dadkaasi hadii baruur ay yeeshaan still testosterone-koodii weli way sareynaysaa garanaysayo baruurtii uma keenaysa estrogen-toodii amba hormoonkii dumarku inuu ku bato dadkaasi way yara khiyaameyn karaya dadka kale qof wala cabiri karaya maanta testosterone-ku ku badan too buuran oo diri leeyahay natural genetikiisa amba waalidkii uu ka soo dhaxlay testosterone inaba caadi ahayn weli uu sii haya testosterone-kii oo inta dhiig laga soo eego testosterone-ka ninkan buuran testosterone-kiisa wanaagsantii waa la oran karaya magarasa ninka testosterone-kiisu aadka u badan yahay haddii uu baruurta steroids ka dhimo amba uu iska gooyo baruurta dee intaa uu yahay uu kasii darnaanaysaa hataa dadka baruurtarida wal arkaysaa change inaba caalihiin dhaqankooda sidii wax u sharaxayaan sidii u hadlayaan si wax kasta ayaa iska kaa bedelaya baruurta ma kalamis why dee sababtaa hormoonkii dhammaa dumarka ku jiray ayay iska flash garaysa of course dee markaa wadu dhaqmaysa sidii ninka testosterone-ka inuu soo kacay markuu meesha ka baxo testosterone-ku waxaan jeedaa markuu meesha ka baxo estrogen-tu testosterone-kii baa la keenay in hormoonadaadu balance yeeshaan sooma orobajiku balance-ka hormoonadaadu ilaalin markaa waxaad baruurta waxyaabaha ka qayb qaatay inuu testosterone-ka maaru badan labaad waxa weeyaan inay dadku ku yimaadaan oo ku yidhahdaan niyow sidii nin uma dhaqmaysi ya like waxba ka yarsiya hiha bay yara tahay ya yani left waxba ka yarsiya qofku sida caadiga isma dareemayo ya qof walba isku haysta normal oo inuu caadi u dhaqmiyo oo dee sidii ninka caadiga u dhaqmayo qof kasta uu isku arkaya markaas laakiin dee dareemaysa inay dadku kooleeyihiin waxba ka yar yani dabeecadaha yani waa yo hablo badan baa la dhalatiniyo like su'aalaha tirku weydiiniyo waxba ka sii testosterone-ka marka waxay tahay qofka baruurta badan iyo qofkan kaleba iska ilaaliyaan qofka baruurta badan leh horta wax iska ilaalinaya waxyaabahan saliidda badan leh waxyaabahaas keena saliidda vegetable oo ayada sunflower-tan aynu badankeenu isticmaalno garaasa saliiddaas horta wax soy la yiraahdo ku jira soygaasna testosterone-ka si inaba caadeen ayuu hoos ugu dhigaan garaasa waxyaabaha ugu daran ee yareeya testosterone-ka marka waxyaabaha saliidaha badan ee ku jira chickenka chibista waxyaabahan sokortan badan soygan badan adu waxyaabahan badan ee cuntooyinkeena ku dhex jira ayaa keenaya in qofkan baruurta badan leh oo baruurtii u sii kacda waxyaabahaasi oo waxyaabaha testosterone-ka yareeya ee estrogen-kana badiya oo waxyaabaha sometimes dumarka ayaa u isticmaala sidii u kordhiyeen estrogen-tooda oo loo qoraa soyga si u kordhiyeen estrogen-tooda estrogen-ka u sababaysa dee waxyaabihii garanayne soo jiidanaya ragga sida caadiga wax aanay dad badankooda aanay ka hadlin laakiin haddana fakina oo dadku liggareeya dee aan saa loo sii eeginba waxyaabaha ugu badan testosterone-ka raggii ka yareynaya bro والله ما كفتمي برو دوم خابا صوي جني وحيابانا إمك كالي سريدال vegetable oil كيو واستعمال ما كفتمي إني وينيان مالويك خابو هيا لو sometimes كم عازمة يا مان كل قفك برورت وحيابا هو عن وحيابهن سريدهن وحيابهن عني سكرتين وحيابهن بصاني قفك اللباية لوشي هي هذا وحيابها لوشي وقراص هي sometimes lipstick يا وحيابها صومر صاني lipstick اللي ما تيدو مركوات تيرجع
wixii uu bilaacabsan nolosha maqlay maanta ka war hadii dirac inta soo qaado ubaxyadii iyo waxyaabihii oo dhan leeyahay dirac caadi u yaro ka samaysan xariirteedii caadiga sidii uu dirac caadiga ayuun ku yar doo qoran nin ma xidhan lahayd no maybad oranaysa bini'aadam caadi oo caqli ilaahay siiyay dadka laakiin maanta hadii lipstick caadiya oo casaankii wax walba leh hadii aan ku soo qoran nin oo marsan saabo dadka qaarkood ka yarsa maxaa haddii lipstick ku qaraxday bowdee saliid yar soo qaado yar mari iyadoo way qabanaysaa shaqadii qaban lahayd lipstick-kan casaanka iyo waxyaabaha kuu sameynaya bro marka kimikaalada ku jira lipstick-ka yar iyo skin care-kan iyo moisturizer-ka iyo cleanser-ka iyo sunscreen-ka iyo waxyaabahan kimikaaladan ku jira aydan garanay wax allaale wax yihiin kombaniyada badankoodana dadka qaar iskaba baangareeyeen heeray harmful gaareen amba cancer ay sameynayaan kimikooyinkan aan ku jiraan inaga laakiin way noo legal oo servidan iyo waxyaabahan aan arkaynaa waxyaabaha ugu wanaagsan skin care moisturizer waxyaabaha aan orano countryada badankooda waa ka baan waa laga xidhay wadamada badankooda way xidhan yihiin dadka shaambooyada kombaniyada ugu sareeya dad kale way xidhan yihiin way loo kiraysan imika why sababta cancer kan iyo waxyaabaha lagu sheego dhibaatooyinka oo dhani iyaga ayuu ka imaadaa sababta way garanayaan dadku kaliya tinanaya entire skinkooda yaraa hagaagii magaranaysa degdeg ugu hagaagay weliba way garanayaan in degdeg ay dadku rabaan magaranaysa ay ku soo darayaan kimikooyinka dilayo oo dhan hooyada oo sheegaan haddii naga iibsadeen kansaro testosterone yareeno estrogen yareeno wax hormoonadaada oo dhan khalkhalino wax kastoo dhibaataa ha ka imaado we do not care haddii aan lacag dinayno weeyaan mindsetkoodu sida keliya tuu fikiraya nooc markaa waa beenta waducan yaree testosterone baa horta yaraa kackacayo garaasa waxaan fiidiyo badan oo ka sameeyay waad mahadsantay inaad fiidiyogan daawatay deed u baahantay coaching aan kaas caawinayo ciltooyinkaaga aan diet kuu sameynayo aan program exerciseskaaga iyo waxyaabaha haaga oo dhan programmigaysa aan kaaga samaynayo u fududoo jeclaanaysa kuu samaynayo inaad jeclaatisa kuu fududaadana waxay ku salaysa inaad joogtaysid waxaad jeceshay dawad joogtaysa sida caadiga dad u baahantay waxaad taabataa linkiga ugu sareeya commentka amba descriptionka videoga hoostiisa linkiga yarayaan aad iyo aad ba mast